ciidamada nabad sugidda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa maanta howlgallo waxa ay ka fuliyeen degmooyinka Xamarweyne ee Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Howlgalladaasi oo ay sheegeen taliska ciidanka nabad sugidda in lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho. howlgallada oo socday muddo saacada ayaa waxa ay hakad galiyeen dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo gaadiidka ee wadooyinkii laga fulinayay. taliyaha ciidamada nabad sugidda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee gobolka Banaadir Khaliif Axmed Erig oo la hadlay TV-ga caalamiga ah ee Somalisat ayaa ka warbixiyay howlgalladaasi iyo hubka ay ku soo qabteen inta uu leeyahay. gaar ahaan degmada Xamarweyne iyo Xamar Jajab ayaa saaka waxa lagu qabtay gaari dameer hub iyo rasaas iyo siliska dabajeexa iyo waxyaabo fara badan oo qarxa wada. waxyaabahaasna waxay hortooda aan horay u haynay oo aan daba joognay kuwa badan oo kale saas oo kale aan daba joognaa. arrintaas waxaan ku qabanay meel fagaara ah waana qiraal waa qisan yahay ninkii lagu soo qabtay. haddana waxay taallaa hay'adda nabad sugidda qaranka marka howlgalkiina weli waa socdaa waa ku guda jirnaa wixii uu ku dhammaadana waa isla soconaa haddii la hayo. howlgalkan ciidamada dawladda ku meel gaarka gaar ahaan kuwa nabad sugidda maanta ay ka fuliyeen degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay daba joogaan howlgallo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada nabad sugidda ay ka fulinayeen degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ay sheegeen in falal amni darro in ay ka yimaadaan ay kaga baqayaan. mana ahan markii ugu horeysay oo Xamarweyne iyo Xamar Jajab howlgalkan oo kala ciidamada dawladdu ay ka fuliyaan. Cabdi Kaamil Yuusuf, Somalisat TV, magaalada Muqdisho.